السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام الصومالية ملك السودة دونك جوكتين ولاشين وبحر سمي مركلي تلاتي هذا اسبوع وحن كسو قادنيا waxaa jirta stimulus checks ama lacag la rajeynayo dawladda inay siiso oo covid-19 iyo dhibaatada u gaarsiiyay dadka dhaqaalaha la rabo in lagu soo kobciyo familiyada la rabo in lagu soo caawiyo marka dood ayaa dhacday rag iyo dumar ah oo la yiri aabayaashu waxay yiraahdeen anaga qaadanayna lacagtii hooyooyinkana waxay yiraahdeen anaga qaadanayna anigu waxaan ka yaabanahay lacagta aabaha iyo hooyadu isku dilayaan ama ay ku dagaalamayaan ma ogtihiin inayan labaduba lahayn caruurta la siiyay caruurta waa in vocation loogu qaado waa in dalxiis lagu geeyo waa in ayaga loogu aratiro waa in dhar loogu iibsho waa in ayaga wax loogu suubiyo laakiin waxaad moodaa in aabihi iyo hooyadiba ay ka dhacsan yihiin oo lacagta ayaga isku haystaan balse caruurta ay leeyihiin lacagti marka la yaabka adduunku wuxuu yahay waarid ayaga lacagtay shaqaysteen caruurtii ku geen waayay dalxiis oo laga yaabo inay si hagbado ugu jireen xataa ayaga lacagtay shaqaysteen ay iyaga iska qadiyeen ubadkooda ka qadiyeen maanta markii dawladda Mareykanka Ilaahay ugu soo dhiibay ubadkii oo la yiri wal dhibaatada dhacday caruurtii guriga ku xayiran reerkii maybe dhaqaalihii inuu ku yar yahay aanu bal lacag u qorsheen oo dawladda lacag u soo qorshaysay ala cunug bay ku helayaan lacagtii marka lacagtaas waa inay isxasuusiyaan in caruurta darteed la idinku siiyay labadiina maxaad isugu dagaalaysiin labadiina ma walaydin siinina macnaa waalan misaadan baa laga heesayaa marka lacagtan baan idin oran lahaa caruurta ayaa la siiyay dartood baa la idinku siiyay iyaga wax ugu qabta iyaga kaga farxiya idinka ha isku dagaalin oo reerkii dhibaataha soo dhaxgelinina